بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي مداوديال ميل كستا joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay beeraleyda reer Somaliland in aynu uga faa'iideyno ka faa'iideysiga dhibaca roobka ah iyadoo xilligan aad loo rajeynayo inuu noo doo raxmada eeba inoo shubo in ay beeraleydu ka faa'iideysto roobkaasi. Waxaa igala qayb qaadanaya oo dhinacayga fadhiya Axmed Saleebaan Cabdi Axmed Libaax oo ah madaxa qaybta cilmi baarista waaxda fidinta iyo cilmi baarista ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland. ugu horeyn waxaanu ku bilaabi doonaa bal fariinta ku aadan beeraleyda reer Somaliland ee wasaaradda beeraha ay u dirayaan qaabkay uga faa'iideysan lahaayeen beeraleyda reer Somaliland dhibaca roobka. Axmed ku soo dhaw. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بعض ما هتصنتهاي عبد القادر عبد الله ألمس أول عبد كاهن داود حسين حيري مركه هره waxaan salaamayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta aan wada shaqeyn wanaagsan leenahay inamada ka socda ay kamid yihiin Abdul Qaadir iyo Daawud magacaygu sidaa uu sheegay Abdul Qaadir iyo Axmed Saleebaan Cabdi waxaan maanta fariin u dirayaa beeraleyda Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolada Maroodi Jeex iyo Awdal annagoo wada shaqeynayna hay'adda DRC arrintan waxaan iskaga kaashanaynaa maadaama ay gaadhay xilligii roobka in ay beeraleydu sida Abdul Qaadir Cabdullaahi Almis sheegay inay ka faa'iideystaan xaddiga roobka inoo di'i doono oo la rajeynayo inuu roob wanaagsan oo kii hore ka fiican inoo da'o. waxaan leenahay beeraleyda Somaliland waxa weeyaan barnaamijkii la talinta beeraleyda sidaad uga faa'iideysan lahaydeen xaddiga roobka inoo da'aya iyo biyaha roobka dhibica in marka beeraleyda waxaan u sheegayaa qodobka ugu horeeya inay beeraleydu maadaama inagu soo noqnoqdeen abaaro badan oo inagu soo noqnoqday oo jira isbedel cimilo iyo hadii ku roon yahay abaarahaas oo keenay inay biyihii yaraadaan dalagii wax soo saarka yaraadaan xaalad adag oo abaara lagu jiro oo dalkii waxa weeyaan ay abaartu aad iyo aad u daran tahay isla markaana maanta ay xaaladu ku adag tahay dadkeenii reer miyiga ah beeraleydeeni xoolo dhaqateeni waxa ka fursan weeyday maadaama sidii Ilaahay looga bartay xilligeedii aynu gaadhnay xilligii roobka aynu ku jiro bishii saddexaad ama bisha aynu u naqaano March sidaynu ognahay bisha March kowdeedii bishii saddexaad kowdeedii ama afka qalaadna la yiraahdo March kowdeedii labadeedii saddexdeedii intaaba roobku uu daay wuxuuna ka daay gobolka Sanaag dhinaca buuraleyda sidoo kale wuxuu ka daay Awdal meesha leedo qolijeed sidoo kale wuxuu ka daay hawdka gobolka Togdheer area habari heshay sidoo kale wuxuu ka daay Ethiopia marka maanta anaga iyo wasaaradda horumarinta beeraha waaxda fidinta iyo cilmi baarista iyo hay'adda DRC oo iska kaashanaya inay beeraleyda Somaliland fariin u diraan ayaa waxa weeyaan ayaan maanta halkan isugu nimi taas marka fariintaas waxa weeyaan in ay beeraleydu sameeyaan inay dhulka si fiican u diyaariyaan ka saaraan waxyaabaha naxliga ama waxyaabaha hadii la ku jira ciida ay kamid yihiin cayayaanada haramaha dalagii hore hadhaagiisa inay ka saaraan taasana keenaysa inay markay beertii hagaajiyaan ee si wanaagsan u qodaan ee ay qorshe ku sameeyaan ee ay qoyska beerta oo dhan ka qayb qaataan waxa weeye inay dhulka diyaariyaan maadaama aynu xilligii roobka filayno sida ay soo saareen qolyaha ayna wada shaqeynta leenahay ee qolada maareynta ciida iyo biyaha ee leedo qolada AMC baa leedahay waxay noo sheegeen inay roob fiican iyo waaxda saadaasha wasaaradda horumarinta beeraha inuu roob wanaagsan inoo daayo oo ka sareeya ama ka fiican intii la filayay taas markaa keentay inaan maanta beeraleyda talo siiyo beeraley marar waxa aragteen anigoo dhowr jeer beeraleyda talo siinay marka taladaas qodobka labaad wuxuu noqonayaa siday dalagooda u hagaajin lahaayeen u waraabin lahaayeen xilli horena u beeri lahaayeen marka dalagii markuu dhulkii oo ku diyaarsan oo aad ka saartay haramihii hadhaagii dalagii hore naxligii iyo cayayaankii ciida ku jiray aad dibadda u saarto isla markaana aad qodo oo seedkii iyo abuurkii tayada lahaa ee wanaagsanaa aad soo xulatay diyaarsato taasa keenaysa marka inaad midhihii marka dhulka ku rido roobkina uu markaa ku helo isla markaana aad beerta biyaha u qabato oo aad beerta biyaha ku soo dido oo aad biyaha ka faa'iideysato oo aad biyaha weel waxaad ku kaydsato si guud waxaan ula hadlayaa beeraleyda Somaliland oo dhan Minlaw iyo Caddo ilaa Laas Qoray inta Somaliland oo dhan ay xukunto taasa waxaanu leenahay beeraley si aynu uga baxno abaartan iyo isbedelkan cimilo iyo cunto yaraantan inagu soo noqonaysa waa inaynu
xooga saaro sidii aynu uga faa'iideysan lahayn ee waxna ula soo bixi lahayn maanta xaalada adag baa ka jira marka la eegayo adduunka barigii dhexe oo dhan waxa ka jira xaalad dagaal taasoo saameyn ku yeelatay inay cuntadii iyo waxyaabihii inoo soo dhoofayay ee soo marayay ay shidaaladu ka mid yihiin waxyaabihii badda soo marayay inay naga istaagaan oo ay xaaladdu markaa adagta wax walba inay nagu qaaligaroobaan si aynu taa uga hortagno inagoo ka duulayna inaynu ka faa'iideysano xaddiga roobka weliba cuntooyinka aynu beerayna ha noqdaan cuntooyinka aan ahayn xawaashka ee cuntooyinka sabargalka ah ee la quuto ee quutal qaalibka la yahay kuwa waxaa ka mid ah galleyda ka mid ah garawga ka mid ah digiraha ka mid ah qamandiga iyo heedda iyo shumburada iyo kuwaasaa ka mid ah waxyaabahaasu waxay keenayaan dadkeenu inay nafaqo helaan dadkeenu inay cunto ay ku filan helaan dadkeenu inay noolaadaan dadkeenu inay quud ahaan u qaataan marka la eegayo waxyaabahaas inagu cuntada ugu badan aynu la soo degnaa waa bariiska iyo baastada si aynu bariiska iyo baastada uga maarano oo badaha iyo dunida xidhmaysa waa inaynu inagu isku tashano beeraleydeena xilli hore la wacyi geliyo ay beeraleydu diyaar garoobaan ninkii beeraleyda waxaan kula talinayaa ninkii labadiisa qindigiisa haystay labadiisa dibi haysta ha meeraro ha diyaariyo beerta qorshe ha u sameeyo intuu qodi karo ha qodo siid fiican ha diyaarsado biyaha ha u qabto maangadadii beerta ha u soo jeexo beerta haddii laba ku roonyo qoyska oo dhammi ha ku dareeraan cagafyada waxa dhaca cagafyada oo kale inta la iska sugayo waxa laga yaabaa inuu aanu roobku ku sugin waayo roobku waxa weeyaan wuxuu ilaahayna siiyey marka waxa weeye haddaad adigu aanad hore ugu diyaar garoobin waxa weeyaan inaad ka faa'iideysan karin baa laga yaabaa beertu markay dhiiqad tahay lama geli karo laakiin xilli hore haddaad dhulkaaga sii diyaarsatay oo aad beertaadii habaysatay oo aad qoyskii oo dhammi ka wada shaqeeyeen oo aad dibigii meerartay waxaa laga yaabaa inaad xilli wanaagsan aad wax kuu soo go-aan oo aad wax fiican qabsato sidoo kale waxaan kula talinayaa cudurrada iyo cayayaanada iyo waxyaabahaas markay usoo baxaan iyo haramaha inay kuwaana kala dagaalamaan sidoo kale intaa waxa dheer markay dalageenni inoo soo baxo inay meel wanaagsan dhigaan inay ku kaydiyaan meel fiican inay suuq geeyaan inay isku xidhaan oo suuqgeyn iyo ay xogo oo kale ka helaan intaa markaynu eegayno maxaa muhiimadda baynu saarayno beeraleydu inay go-aan gaari karaan inay soo saari karaan midho tayo leh inay yarayn karaan khasaaraha dalagooda ku dhacaya inay la tacaali karaan isbeddelka cimilada inay kordhin karaan dakhliga beerta kasoo gelaya inay beeraleydu isticmaalaan abuurka la yidhaahdo abuurka la qabsada cimilada isbeddelka cimilada lama gebi ahaanba meesha lagama saari karo laakiin waxaa lagu sameeyaa laba waxaa la yidhaahdo adaptation and mitigation waxa weeyaan yarayn iyo la qabsi marka kuwaasna waxa weeye dalagyada u dulqaata adkaysiga biyo yaraanta sida ay ka mid yihiin digiraha oo dadkeena nafaqo u leh waxaa ka mid ah garawga ka mid ah waxaa ka mid ah arabikida ka mid ah ama digiraha oo kale habkan aynu maanta beeraleyda u gaadhsiinaynaana waxa weeyaan annaga iyo hay-adaha aan wada shaqaynta leenahay oo si wanaagsan wasaaradda u caawiya isla markaana ugu deeqa saacadaha qodaalka siidharhka kuwaas markaa waxaanu leenahay sida DRC oo kale ay u gaadhsiinayso beeraleyda fariintaas oo kale iyaguna inay kala qayb qaataan oo beeraleyda lagu taageero waxay ku taageeri karaan hadday siir tahay hadday tahay cagaftii qodaalkayd weliba beeraleyda Somaliland waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inuu qof kasta ciidda faraha dhulka la geliyo isla markaana wax la soo saaro isla markaana looga faa'iideysto xaddigan roobka ee inoo da'ayo waliba labadii sano u dambeeyay ilaa 3 sano u dambeeyay roob fiican maynaan helin dalageenuna wuu hoosay taas markaa keenaysa inaynu anagoo maanta la hadlayeen inagoo isticmaalayna raadiyaha iyo telefishinka inaynu habkaas oo kale ku gaarsiino aadna waad u mahadsantiin sideeba looga faa'iideystaa biyaha roobka cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay biyaha roobka waxa looga faa'iideystaa walaal in marka koobaad biyaha roobka in la qabsado in beerta loo qabto in weel lagu qabto in ay bacaha iyo hadii laba ku roonyo qofku ma qarbad buu heli karaa ma bac buu heli karaa ma taangi buu heli karaa ma balay buu heli karaa ma berkad buu heli karaa inuu horta biyaha roobka qabsado biyaha roobka markaad qabsato hadhow toole dalagaaga waxaad isticmaali kartaa wax la supplementary irrigation inaad marka maalmaha roobku kala go'an yahay ee cimiladu kulushahay oo kale inaad beerta ku waraabiso isla markaana mar qura aanay beertaada qalalin marka habab fara badan baa loo qabsadaa waxay ku xidhan tahay marba qofku inta uu tahli karayo ama awoodi karayo tusaale ahaan kii awoodi karayaan inuu bacdiisa awoodo
kii qarbid heli karaya inuu qarbid ku qabsado kii balli ku qabsan karaya inuu ku qabsado kii berkad ku qabsan karaya inuu ku qabsado marka in biyaha roobka laga faa'iideysto maadaama ay biyo dhulkeenna ay biyuhu aad inoo dhaafaan oo badda galaan inaynu biyaha maarayno oo biyaha aynu samayno maarayn taasa keenaysa sidee loo kordhin karaa wax soo saarka beeraha cabdulqaadir waad mahadsantahay wax soo saarka waxa loo kordhin karaa walaal inagoo isku tashana heer qaran dawladeena xukuumadda wada jir iyo waxqabad waxa ka go'an inay xoojiso dhinaca wax soo saarka beeraha inaynu samayno isku tashi inagoo beeraleydeena aqoon-yahankeena sidiina warbaahinta oo kale aad noo caawinaysaa warkayagu meel fog gaadho oo min Somaliland 6 gobol oo dhan inuu gaadho taasa marka in beeraleyda in la taageero oo wacyigooda la dhiso isla markaana ay iyagu fahmaan inay yihiin dad muhiim ah oo cunto soo saarayaal isla markaana aynu uga maarano waxyaabaha inooga soo degaya iyo warwarka inaga haysta dunidan dagaalada ay saameeyeen ee bariga dhexe oo kale ee badihii xirmayaan ay dadku uga warwarayaan marka inagoo xoog saarayna wax soo saarka dalkeena gaar ahaan cuntooyinka quutul qaalibka ee dadku ay kaga maarmi karaan bariiska iyo baastada iyo gaajada lagula dagaalamo aynu isku filaansho cuntona u gaadhno waxa weeyaan inaynu biyaha qabsano beeraheena hagaajisano qalabka iyo wixii marba la heli karo ee dhaqamigeena aynu haddana dadku cagaf wada heli karin inay dibiga oo kale isticmaalaan inay gacanta isticmaalaan inay guus isticmaalaan inay qoysku beerta ka wada qayb qaataan inay qorshe u sameeyaan inay xoolaha oo kale calaf u beeraan kaasa keenaysa marka inaynu isku tashi oo kale inaynu sameeyno maxaad kula talin lahayd beeraleyda reer Somaliland inay beertaan sida dalagyada cuntada oo kale waad mahadsantahay walaal Cabdulqaadir waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan waxaan kula talin lahaa inay beeraleyda Somaliland inay beertaan cuntooyinka aynu ka sheekeynayna aad ka wanaagsan ee dadka caruurtu iyo hooyooyinka iyo waalidiinta waayeelka waaweyn ay kaga maarmayaan nafaqa darrada digiraha kamida galeyda kamida oo loo isticmaalo intaas oo hab oo kala duwan galeyda waxa loo isticmaali karaa mar waxa lagu sameeyaa xalaa value addition waxaad sameynaysaa mar waxaad ka dhigaysaa shuuraad ka dhigaysaa waxaad ka dhigaysaa hadii laba ku roon galeydan caadiga la cuno hadii budaa laga dhigayaa daqiiqda lagu daraa marka inay isticmaalaan cuntooyinkeena wadaniga aynu naqaano wadaniga ama kuwa dalka ka soo go'a ay kamid yihiin digiraha kamid yihiin garowga kamid yihiin arabixida kamid yihiin hadii laba ku roon yahay heeda ay kamid yihiin qabadinka ay kamid yihiin shumburada ay kamid yihiin lawska ay kamid yihiin saliiduhu kuwa dalkeena ka soo go'ay organic ee muhiimka inoo ayaan kula talinay waliba maanta taladan waxa weeyaan beeraley inaad ka faa'iideysataan xadiga roobka oo la rajaynayo insha Allah ta'ala inuu yahay roob wanaagsan waayo dadkii maanta waxay ku jaahwareersan yihiin ma neefkay quudiyaan mise waxa weeyaan hadii laba ku roon yahay iyagiiba naftooda wax u raadsada beeraleyda bariga Somaliland waxaan kula talinayaa idinkuna inaad sida galbeedka sameysaan habka wax beerashada oo aydan ku ekaanin kaliya inaad xoolaha dhaqataan waayo maanta dunidii way isbedel cimilada dhacay waxa loo guurayaa hanaan cusub oo leeyahay hanaanka cusub ee wax soo saarka beeraha tusaale ahaan climate smart agriculture qofku hadaanu beer lahayn xoolo ma dhaqan karo waayo maanta kiishka galeyda iyo kiishka garowga ay wuxuu marayaa gobolada bariga Somaliland $50 $60 inta u dhaxaysa biyihina hadalkooda bada marka inay biyaha qabsadaan inay xoolahooda calaf u beeraan oo xilliyada roobabka iyo barwaaqooyinka oo kale inay kaydad sameystaan oo calafka kaydsadaan oo hadii laba ku roon dalagyada soo go'aya kaydsadaan taasana marka kula talinaya beeraleyda Somaliland guun iyo gunaanadkii gabagabadii waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay'adda DRC aan wada shaqeyn leenahay wasaaradda horumarinta beeraha waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa madaxda wasaaradda horumarinta beeraha ay ugu horeeyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Dr. Maxamed Ciga Yuusuf wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha Professor Mukhtaar Xaaji Maxamed sidoo kale waxaan salaamayaa agaasimaha guud Engineer Cabdirasaaq Axmed Gaas oo ay madaxda wasaaradda horumarinta beeraha oo meel dheer gaarsiiyay intay wasaaradda joogeen isla markaana waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan noo qabsoomeen madaxdana waxaan leeyahay halka ka sii wada waad mahadsantihiin qolada waraysiga iga qabateen iyaguna aad iyo aad bay u mahadsantihiin ay kamid yihiin telefishinka qaranka radio Hargeysa waad mahadsantihiin intaas ay inoogu dhantahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Axmed Salebaan Cabdi Axmed Libaax oo madaxa qaybta cilmi baarista ee waaxda fidinta iyo cilmi baarista ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland oo talooyin ku aadan xilli roobaadkan u jeedinayay beeraleyda reer Somaliland intaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh